رمضانتي بحسنيدي هي مرحبا الله الله طويلة هي كدردي بركياي مرحبا رمضان ويسoo socota oo waqti badan ay kama harsana adiguna waad ogtaan waan ogahay Ramadan hadii aanad u diyaar garoobin halkaad maanta taagan tahay ayun baad taagnaanaysaa Ramadan markay dhamaatana maanta waxaan rabaa dhowrka daqiiqo ee soo socda inaynu si wanaagsan uga wada hadalno oo aynu guda galno qaladka ugu weyn ee inamiyaha hablaba ay sameeyaan markii Ramadan ay timaado haddaba qaladkan weyn intaynaan guda gelin ayaa waxaan rabaa mid inaad niyadaada adigu aad ku hayso waxaan rabaa inaad niyadaada aad ku hayso markii Ramadan timaado macnaheedu ma aha inaad joojinayso ka shaqaynta caafimaadkaaga markii noqoto maskax ahaan jid ahaan iyo dareen ahaanba ka shaqaynta caafimaadkaaga waa horumarka naftaada markii Ramadan timaado iyo markaan Ramadan aanay ahayn niyadaada waxaad ku haysaa waxa aad u sii muhiimsan markii Ramadan timaado marka inaad xasuusnaato inay muhiim tahay inaad joogtayso ama aad wado ka shaqaynta caafimaadkaaga Ramadan markay timaado taasi waa taa soo kalena markastoo adigu su'aal aniga aad soo weydiiso xagga commentiga waaniga kuu soo jawaaba anigu waliba su'aashaad soo weydiisay si wanaagsan kuugu sharaxayo oo ku fahansiinaya maanta waxaan rabaa anigu adigina su'aal ku weydiiyo su'aasha haddaba aan rabaa inaan ku weydiiyo waxaan rabaa si daacad inaad uga jawaabto su'aashana waxaan ku weydiin doonaa fiidiyogan dhammaadkiisa waayahay haddii aynu haddaba guda galno qaladka ugu weyn ay namiyaha hablaba ay sameeyaan Ramadan markay timaado waxa weeye waa qorshe la'aanta Ramadan haddii aad iska sugto oo ay Ramadan timaado isagoo wax qorshe aan ku dedsanayn waxaad ogaataa halkaad hadda taagantu baad taagnaanaysaa qaladkan namiyaha hablaba way ka siman yihiin mana raba haddii aad hore u samaysay qaladkan inaad hadda ku celiso Ramadan markay timaado waayo halkaad hadda taaganta ayun baad taagnaanaysaa haddii aan wax qorshe ahi ku dedsanayn qorshe haddaba markaan ku leeyahay waxaan ka wadaa qorshe inaad u haysato ama aad ogsoon tahay waxaad samaynayso xagga cuntada xagga jimicsiga xagga faytamiinada xagga rutiinka iyo xagga biyaha intaasba waa inaad qorshe kaaga dejisan yahay oo aad ogsoon tahay waxa aad samaynayso Ramadan markay timaado haddii aynu xagga cuntada haddaba markoobaadkaanu ku horeyno haddii aad wax kasta iska cunto qaladka namiyaha hablaba way sameeyaan intuu qofku wax kasta iska cuno uu iska sugo inuu isbedel dhaco uu qofku moodo maadaama maalinkii dhan uu sooman yahay wax kasta inuu cuni karo afurka suxuurta iyo cashadaba taasi waxay keenaysaa haddii aad niyaddii aad ku hayso inaad isbedel doonayso in markii Ramadan dhamaato inaad halkii aad taagnayd meel aan ka wanaagsanayn aad istaagto amaba halkii aad taagnayd markaan Ramadan aan imaan aad sii taagnaato waa xagga cuntada laba xagga jimicsiga inaad jimkii iska tagto ama hebel wuxuu sameynaya aad aragto ama heblaay waxay samaynaysaa aad aragto ama jimkii intaad iska tagto kaliya aad kolba bir ama kolba mashiin aad ku cararto ama aad iska samayso sidoo kalena aanad garanahayn inta cishiyaad tagayso waxaad samaynayso saad u samaynayso iyo sidoo kale waqtiyada aad samaynayso ma habeenkii baa la samaynayaa jimicsiga ma subaxii baa la samaynayaa ma afurka ka hor baa wanaagsan ma afurka kadib baa wanaagsan soo kale markay noqoto xagga faytamiinada haddaba inaan qofku ogeynba faytamiinada uu qaadanayo uu kaliyaata cuntadii la cunayo suxuurta iyo afurka iyo cashada kaliyaata qofku uu cunayo sidoo kale markay noqoto biyihii haddaba qofku inaan ogsoonayn inta biyo ee uu jirkiisu u baahan yahay markii Ramadan ay tahay soo kale markay noqoto hurdadii ama rutiinkiina meeshii uu ka baxsan yahay marka dhowrka isbuuc ee soo socda hadda waxaan rabaa inaan kula wadaago adiga shakhsi ahaantaada kow xagga cuntada markay noqoto waxaynu ka wada hadli doonaa waxa weeye kow cuntadaad cuni doonto suxuurta markay noqoto afurka markay noqoto iyo cashadii markay noqoto cuntaad cuni doontaa inay noqoto cunto nafaqo leh oo faa'iido leh supermarketka marka aad tagto waa inaad soo iibsataa cunto nafaqo leh oo keenaysa inuu jirkaagu isbedelo soo kalena cuntooyinka waxa ku jira inaad si wanaagsan aad u fahanto cuntooyinka cuni doontaan inay noqdaan cunto ay ka kooban tahay protein carbohydrate iyo fat keenaysa inaad energy wanaagsan aad hesho
laba jimicsiga haddaba markay noqoto maadaama bil rabadaan lagu jiro maalinku dhan la sooman yahay enerjigu yar yahay daalku fara badan yahay inta cishee jidhkaagu uu u baahan yahay inaad samayso jimicsiga sidoo kale waqtiyada aad samaynayso ma afurka ka hor baa wanaagsan ma afurka kadib baa wanaagsan sidoo kale markay noqoto markaad jimicsiga aad tagto muruqaad jimicsiga aad siinayso si jidhkina uu nasto isbeddelna uu u sameeyo sidoo kale faytamiinada aad qaadanayso waxay ka kooban yihiin iyo sidoo kale xilliyadaad qaadanayso inta rabadaan lagu jiro sidoo kale biyaha intaad cabbayso iyo xilliyadaad cabbayso marka rabadaan lagu jiro maadaama maalinku dhan la sooman yahay jidhkuna uu haraadan yahay xagga rutiinka ama xagga hurdada markay noqotona muhiimadeeda inaad si wanaagsan aad u fahanto sidoo kalena in aad ogaato inta saacadood ee jidhkaagu u baahan yahay inaad nasato waayo adiga waxaa laga yaabaa inaad shaqayso waxaa laga yaabaa mataqaana inaad iskuul tagto maalinkii ama habeenkii anytime xilliga doontaba ha noqotee marka intaa hadda aan ka hadlayba xagga cuntada markay noqoto xagga jimicsiga markay noqoto xagga faytamiinada markay noqoto xagga hurdada markay noqoto xagga biyaha markay noqotoba shantaaba waxaan kula wadaagi doonaa dhowrka isbuuce ee soo socda anigoo qayb kasta si wanaagsan u sharaxaya qayb kastana ku fahansiinaya si aad isbeddel aad u samayso rabadaan dhexdeeda qaladkaas inamiya hablaba ay sameeyeen ama hore u sameeyeen ama laga yaabo adigu hore inaad u samaysayba inaanad mar labaad ama mar saddexaad ama mar afraad aanad samayn ee aad isbeddel wanaagsan aad samayso rabadaan dhexdeeda marka waxaan rajaynayaa inaad adigu diyaar tahay waayo anigu diyaar baan ahay haddaba su-aashaan rabay inaan adiga ku weydiiyo diyaar ma u tahay si wanaagsan may maqlaysaa su-aashaan raba adiga inaan ku weydiiya waxa weeye maxaad jeclaan lahayd rabadaan inaad wax ka beddesho adiga shakhsi ahaantaada maxaad jeclaan lahayd markay rabadaan timaado inaad wax ka beddesho naftaada su-aashaas iiga jawaab kommentiga iigu reeb waa ballan waan akhrisanayaa waana kuu soo jawaabayaa waxaa inoo ballanaa fideoga xiga peace out